بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتو عن دغيستيال كنا سو دواada barnaamijkii maan hadal. barnaamijka maan hadal waa barnaamij maalin kasta oo Jumcada aad ka dhageysataan idaacada Radio Diljir. wuxuuna maanta barnaamijku ka imanaya xarunta Diljir ee magaalada Kalkayo waxaad kala socotaan dhammaan xarumaha kala duwan ee Diljir ay ku leedahay Soomaaliya iyadoo cidii barnaamijkaani uu seegana ay mar kale kaga boog karayaan website-ka radiodiljir.com. wuxuuna barnaamijku maanta ku saabsan yahay colaadda ku soo laalaabataha gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Kalkayo maxaa sabab u ah. waxaana barnaamijka igala qayb galaya nabadoon cali diiriye alloore oo kamid ah nabadoonada galmudug, yaasiin cabdisamed oo isaguna kamid ah nabadoonada dhinaca Puntland, iyo waliba ugaasa maxamed weli oo isaguna ku sugan gobolkaasi Gadow. su'aasha ugu horeysana waxaan siinayaa nabadoon cali diiriye alloore. yaasiin cabdisamed ha iga hormari. yaasiin ha iga hormaro. haye yaasiin ku hormar. علي ديري قدام كورمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دليسياشا iyo martida saaxiibada iyo khadka ugu leextay waa salaamaya salaanka dibti kooban hadaan u iraado alaanu ugu soo riixay dagaalada inay soo noqnoqdaan cali diiri sababe ما علي وسوري حياتي هذا صوت تصيك يلا إيمانك على الكذب فاعل هنا صور نقطة علي إنه دين الإنسان صوابها مركا على بيتها يريحين هاي قبل ما يقول أنت هذا كله ويا علي ديري الله maxaa sabab u ah colaadaha magaalada Galkayo inay soo laabtaan had iyo jeer. nabadoon yaasiin wuxuu leeyahay cali diiriye alloore sabab uu leeyahay horta yaasiin yani nin yaroo dhalinyaro weeye. idaacooyinka iga markhaati aniga dagaalka inaana shaqo ku lahayn yaasiin shaqo ku leeyahay. maxaa jira anigu idaacooyinka qabiil ugama hadlo, habar wacadna ugama hadlo, seella ugama hadlo. bal yaasiin dib loo raaca idaacooyinka aan ka hadliyo taan anigu ka hadlo bal dib u raaca. waayahay kamaal marka anigu aan galo. bismillah. dagaalka Gaalkacyo inuu soo noqdo sabab waxa uu ah wax kala lahaanshaha bini aadamku markuu meel wada ku wada nool yahay oo yariya abuu labada qof ay dhalaan waxay kala leeyihiin dhaxalka Ilaahay u qaybiyay. waxa abahood tabcay idbaqismu leeyahay maalinta abahood inta wadaad baa loo keenaa waa loo qori firaa qof walba saamiga uu leeyahay buu qaataa wixii magac loogu qoraayo meel loo dhigaa. Gaalkacyo waxa Ilaahay uu bini aadam ka dhaxaysiiyay oo inoo Soomaaliya markii hore inuu ku dheeray oo Afrika ka dhigay kadibna dad Soomaaliya ka dhigay kadibna beelayna ka dhigo qolada meel alla ku abuuray iyo kamid arlada Ilaahay dadka uu ku beeray. waxaan u aragnaa markaa anagu Gaalkacyo inay tahay deegaan reer Puntland annaga iyo walaalahayna deegaanka dhalashada iyo Soomaalinimada iyo naga dhaxayso qaranka Soomaaliya naga dhaxeeyo inay deegaan iyaga loo yaqaan leeyihiin oo aanan anagu hadda duulaan ku ahayn oo muddax kula jirin oo ay leeyihiin oo loo yaqaan oo Ilaahay ku beeray oo cidii kula noolaanaysaana ay marti iyo mudanaba ugu tahay. annaguna sidaas oo kale aan nahay. Gaalkacyo marka meel taariikheedu shalay bilaabatay maaha, waa meel taariikhdeeda la yaqaan. dhibta hadda ka jirtaana 80% waxay ka socotaa dhinaca cali diiriye ka soo jeedo. taariikhda magaaladan Gaalkacyo 3 jeer lagu dagaal ka dhacay intii hadda burburkii iyo xilliyadii ku sinaa. markii ugu dambeysay dagaalkii civil war-ka ah muddada socday oo ay cali iyo reerkiisu weerarka soo qaadeen bay ahayd. dad badan baa lagu xasuuqay, dib baa ka dhacday, waa lagu kala guuray. cali wargale iyo ka shiliinay Subateeni baa la geeyay. halkaa markii xaaladdu ay joogtay waxaa la yiri war lama kala maarmi karo, dadka iyo dalka waxa haray hal cayniyo. xamar baa shirna isugu tagay 93 bay ahayd. waa lagu soo wada hadlay. waxa laga wada hadlay diin iyo dariiqo iyo caqiido ma ahayn, dawladnimada ma ahayn. waxa laga wada hadlayay war waxa aynu isku haynaa maxay yihiin. waxaa caddaatay waxa lagu diriray oo reer mudug ku dirireen inay deegaan tahay. cali
reerkoodu galdogood bay weerareen oo muddo dagaal ku hayeen waxay weerareen jariiban iyo balibisle iyo cadduun waxay weerareen gobolka mudug ilaa qabad iyo gallisood deegaanka dadku waa kala hayd cali waa nin odayaasha beesha uu ka mid yahay weliba gaar ahaan sacad annaguna dhinacaan daaroodkaa baan nahay deegaanka duulaanku 24 saac ku socdo oo shalay oo ugu dambeysay faroon qabad iyo meesha la yiraahdo gaalkacay inta ka dhaxlo 2 maalmood gudahood weerarka lagu ekeeyay waxa weerarka wadaa waa cali iyo reerkooda weydii marka waxa ka maqan oo gaalkacayo xaafada baraxleyda ka degan waana loo ogoliyay waxa garsoor iyo barda dheer cali ka yaal iyo reerkiisa wadaga ugu yahay oo daraa 4 maalmood ka hor rag imaamka hogaaminaya inta u tageen ay yiraahdeen labada qol oo raadgood oo habeennimada la dhisay tuugada lagu dhisay in laga hadla maahay nabad ka hadlimayno waxa hadda shalay iyo daraa dhacayna ay sabab u yihiin tii ka horeysayna wado la dhisayo oo mujtamac oo dhan ka dhaxayso oo masaalix caam ah ay isoo taageen oo aan gurigoodii iyo deegaankoodii iyo xaafadoodii midna ahayn oo 200 oo qofna ku dhimatay magaaladuna ku barakacday bisheedii kala ay tahay bal cali waxaa la weydiinayaa cali maanta waxaa la rabaa dadka inuu u cadeeyo waxa xuduudiisana ka dhigay meesha la yiraahdo buurtilo dastuurka ugu qoray duulaankana ugu yahay xaafada u degan yahay ma xaafadaha kale waa ka bax cali diiri yaasiin waa maqlaysaa bismillahi rahmaani rahiim horta qofkii hadlahaya hadal aynilo ama hadal odeed ama hadal dowlad maha ku hadl hadda nabaddoonka u dambeeya wuxuu yidhi cali dul ahleedahu ku tirirahay horta koonka ilaahay baa cali diriyo dul sheegan maayo haddii ilaahay meel yaroo 2 mitira ayaan ilaahay ii asteeyey waxaan su-aalayaa nabaddoonka waxaa tidhi intaasoo weeraray ku ekeeyeenoo haddii ilaahay maayo waxay tageen daalka la yidhaha jariiban intaa tagaan ku ekeeyeen dadkaan anigu meel jirado inaan taqmiyo ma jeclo laygumana yaqaan hase haddee miyuu markii baadiye miyuu ku maqnaa markii wargalo iyo ilmo iyo haddii ilaahay dawgaab iyo hukuukanin markii lagu leynayay baadiye hadda ku maqnaaye magaalo ma joogin marka nin magaalada yaqaan baa horta anigu la hadlahayaa nin magaalo yaqaan ninka aan magaalada aqoonna inaan la hadla ma jeclin inaan qabiil iyo ananiye iyo waxa umada fasasi keenahayana inaan ku hadla ma jeclin nabaddoonku wuxuu yidhi cali magaalkacayuu leeyahay gaalkacyo ilaahay baa leh anigu gaalkacya waxaan ku dhashtay gaalkacyo dadka caruura aabbahay dhalana bayruux ilaa bayre iyo marqaan buu xukumi jiray aabbahay wuxuu xukumi jiray ninka la yidhaha nuur cali qonof yaasiin dalcaan kalaqbeen haddii ilaahay maahayo inta majeerteen magacale aabbahay baa u korreeyay xagee jirkiisa markii intaa aabbahay xukumay meeshaa jirkiga horta ka jawaab markii dahartaan dheer aabbahay dhistay oo aabbahay dhista talyaanigii sidkaana isagu uu falahayo madaxda u ahaa hageelaa jiri aabbahay markuu yidhi marqaan iyo bayre inta ka dhexle nuur cali baa iga ilmo nuur cali yaasiin dalcaad baa iga markhaatiya yaasiin xasan bidaa iga markhaatiya war wadankan inaadan wax ku ahayn marka kala dul inaadan lahayn dhulkaan ilaahay baa leh eel alla wadankan waxaa hawiyaa degi jiray adigu ma adan degi jiray talyaanigii dagaalkii koobaad baa tiri hadda intaa aan ka har nabad 2 oday baan nahay nabad aan ku dhawaaqno dadka muslimkaas muu yeerno xabad iyo waxaas aan ku dhawaaqin idaacadana wuxuu yaana ka siisay anigu oday nabadeed baan nahay haddii ay qabiil joogto gaalkacyo haddii kale xoog baad ku dhaaranaysaa xoog ku furo aniga xoogna shaqo ku beli qabiilla inaan ka hadla ma rabo gaalkacyo waxaan ugu dhawaaqahaya shabaal u sheegahayaa nabad iyo walaalnimo waayo calgiri aad baad umahadsan tahay ansiyo ugaas maxabuli bismillah alxamdulilahi rabi alcaalamiin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا الله معاد السنة ثم وحان ومهد علينا قرآن فرصة عن نخلصي في عدد الجر يوريها برانس دادينية سيدو كلا وحان مارس يغنى سلام يا ومهد علينا labada nabadoon oo ku jirta xadka horta runtii aad baan u soo dhaweynayaa xiriiri kastaba ha jiro oo maana ku talagelin fursaduna waa xiriiri raallina ahaada waxaana si darro horta ah oo ayaan darro ah dadka markii la yidhaha taariikhiyan anigu inta aan garanayo nin konton jir ahaan ahay inta aan garanayo dadka isugu dhalka badan oo isdhalay oo qaraabada ah ama isla dhashay waa dadka midug isla degan siiba marka la yidhaahdo nimankan daaroodka ah iyo sacad inta aan garanayo markii la yidhaahdo gobollada dhaxana waxa weeye waa daaroodka nimanka mareexaanka la yidhaahdo iyo habargudus oo dhan leanna markii la yidhaahdo hadda cumar maxamuud ama majeerteen bay iska dhe iyo awrtabli iyo linkasiya markii la yidhaahdo waxay aada isugu wen yihiin waa sacad jaanibka kale iyo wagardhac oo kale iyo ayay aada isugu dhegan yihiin reexaankana habardiirtaan kale ayay aada isugu dhegan yihiin ayagana waxaa nasiib darro ah meelaha kale oo lamidka ah waxaa kamid a dhulbahante iyo habar jecle nimanka la yidhaahdo jarxajis iyo maxamed subeer ama habar yoonis iyo makaahil nimanka ibraahimne nimanka la yidhaahdo waxyaabaha nasiib darrada ay kamid tahay habar gidir iyo xawaadle oo cayr ah weliba cayr nimanka la yidhaahdaa waxyaabaha la yaab kale bay kamid tahay dadka isdhalay oo sida mucjisada isu dila oo abtiga iyo adeerka iyo seediga iyo sodoga ibna habreedka ilma eedaha ilma abtiga iso ah waxyaabaha aan aniga kari la ahay oon dadka waxbaan ka qorahaye inta badan aan wax iiga jawaaba aan la ahay markaan weydiiyey kamid tahay labada qabiiloo hadda dirirahaya oo gaalkacyo isku haysta dagaalka waxaa laga yaabaa inuu ugu dhib badan yahay wiilka abtiga sacadka u yihiin ama daaroodku hawihu u yihiin ama daaroodku ay yihiin inuu ugu dhib badan yahay admoodaa waxaana loo yaqaanaa barbar xaaraan baa loo yaqaanaa marka laga hadlayo waa wax ayaan darro ah waa wax mucjiso ah waa wax diinta islaamka ka fog aan u nasab sheeganayno waa wax dhaliyada wanaagsan ka fog waa wax qaraabinimada ka fog waa wax caqliga saliimkaa ka fog waxaad ii sheegtaan oon rabaa inaad idin weydiiyo odayaal baa tihiin nabadoonnaad tihiin deegaankan aad hadda wada degan tihiin haddaad ku guul darraysateen hal maamul inaad samaysataan oo aad wax isla raacdaan sababta aad ugu guul darraysateen inaad xabadda kala joojisaan ileen qax dhankan muxuu ahaa hawiyahana dhaqaqu diyaar uma aha mana doonahayaan dhibkana ma kari karaan dhankan kalena waa sida oo kaleo dhibka ma doonahayaan galmudugna ma doonayso puntlandna ma doonayso sababta aad u kari laadihiin wiilkan qoriga wata oo dagaalamaya wiilkan xabadda wata oo dariiqada raadinaya wiilkan xabadda wata oo rabo dadku in islaayo wiilkan xabadda ridaya oo asaga faa'iidada ay ugu jirto in dadkan ay isdilaan oo kala qaxaan oo maalin uu meel wax ka soo jiito sababta wadayaashiina iyo guddoomiyaalkiina iyo culimadiinu magaalada aan arkay waa magaalada waxaan u malaynayaa labaad soomaaliya intaan maray gaalkacyona waan aqoon jiray magaalo sidaas u fiday hal magaalaa ka horeysa gaalkacyo intaan anigu garanaya garaadkayga magaalada ka horeysaay waxa weeye waa hargeyso allahu mustacaan boosaasana dad baa raaciya laakiin anigu ku dari mahayo siday u fiday gaalkacyo waa magaalada labaad weeye soomaaliya waan soo wada maray sanaag baana weli tegin aniga sanaag baa ii dhiman waxaan rabaa inaad iiga jawaabtaan dadkiina dhaliyada nooca u ah oo muslimnimada walaalo ku ah oo dhaliyada ku ah oo deegaanka ku ah oo soomaalinimada ku ah oo luuqada ku ah oo intaa isla wadaaga oo aan kala maarmi karin sababta ay u suurtageli weyday haddaad adiga cali diiriyow nabad rabto oo nabadoon yaasiina aad nabad rabto sababta loo joojin waayo dagaalka asaga ah maxay tahay iisoo koobo bal ii sheega
waya su-aashaas waxaa kaaga jawaabaya nabadoonadu waa ku maqlayaan labadoodaba hayayaasi ku hormar bismillahi raxmaan raxiim intaanan horta saaxiibkayga dambe aana u jawaabin waxaan rabaa cali kelmad inaan idhaahdo cali diirigow horta maxkamaddu waa tan rabbi nin walbaana wuxuu yahay iyo wuxuu yidhaahdo hadduu hadda adduunka ku inkirana berri baa qiyaamaha la hor keenayaayo iqra kitaabaka agtaal hadda ka hor inagu mar baynu idaacaddan ka wada doodnay oo waxaa tidhi daaro dalka goormuu wax ku lahaa haddana waxaa tidhi aabbahay baa marqaan xukumi jiray oo anna gaalkacyaan ku dhashay aabahayna nuux cali qonofi halkaasuu ahaayo wakaasoo halkaa anaa xukumi jiray 78 jir baa tahay horta waxa weeye dhalinyarada sacad waxaad adigu u sheegtay bay qaateen oo sababtay u yidhaahdeen marqaan iyo buurtinlaanu leenahay oo deegaan noo ah oo aanu ay dastuurka ugu qorteen haddana duulaanka ugu yihiin horta waa waxaad adigu u sheegtay wiilashu kuma riyoon waxaa soo haray gaalkacyo taariikhdeedu taariikh hadda ama idaacaddan iyo doodan lagu koobi kara maaha dalkana ilaahay qolaba meel buu ku beero ceel iyo carshin iyo xudun iyo xabaal uga dhiga aniga awowgay wuxuu ku aasan yahay qorihaar daaye labada isdhashay aadan mahad iyo xirsi aadan labaduba xabaasha waxay ku aasan yihiin meesha la yahay qorihaar daaye kafacna meeshay ahaayeen cali waa ogahay qaraabo daarood buu leeyahay oo reerabti baanu una anna sacad reer awowgay ii yihi awowgay xuseen hooyadiis waa ina guuleed faarax jeex qobyo ka shishay baa awowgay ku guursaday oo deegaan lagu ahaa intaa waa soo socon intaa cali baa dabada naga soo waday gaalkacyo xorriyaddii soomaaliya iyo xilligii gumaysigaa dadka isu keenay gaalkacyo meel sheer lagu yaho la wada lahaa maa sida hadda loo wada degan yahayna cid dacwo kama qabto aniga boqortooyadaydu asalkeedu islaan aadan wuxuu ku aasan yahay quraclo islaan cali inkiri mayo bal cali ha sheego meel ama boqortiis ku aasan yahay ama xabaal awowo uu 3 ama 2 ka tirsado ay ku aasan tahay oo ka sokaysa meesha la yahay ceelhuur wixii hadda kacaankaan iyo dawladdii soomaaliya iyo xornimadii iyo waxaan ay dadka hadda isugu keeneen faraha ka qad aniga waxaa la helayaa ninka aan ka tirsado 6 oday ama 5 oday wuxuu ku aasan yahay 4 waaqa ka hoos iyo bad inta u dhexle 43 iyo dagaalka hoodaaq la yiraahdaa waxa uu ka dhacay gol daantiis gol bulshaa ku xigay gol xilliga annaga deganay soomaalinimadii iyo isdhexgalkii iyo waxdoonkii iyo gumaysi la dirirkii baa dadka isu keenay qarankii Soomaaliya oo la dhisayna 91dii civil war-ka waxa u bedelay cali buu ahaa from Kismaayo ilaa iyo meesha aynu joogno inta ku dhexlo isku fiday gaduu ka dagaalamay cali iyo ceelwaas iyo xuduudda Kenya iyo gaalkacyo inta u dhexle reer walba oo Soomaaliya intuu tagay dalkooda iyo deegaankooda ku qabsado annagu isdifaac baanu ku jiray wixii shalay nagu dhacay baana markhaanti u ah oo cabdi qaydiidka hadda joogo oo maalin walba hanjabaya oo gaalkacyo ka sameeyo maxasooxa ahaa waya su-aasha waa soo gudbay waa u soo noqonaya jamaal su-aasha wadaadku hadda uu keenay Soomaaliya oo dhan baa isku fidnooday fidnada hadda dhalashadana sidaan hadda wadaadku waa uga jawaabay sidaan nahay calina annagaa dhalnay anigana waxay dhalay reerka kale waxaan jeclahay in naba lagu wada noolaado oo dibadda lagu wada joogo oo nin walba uu dantiisa iyo maslaxadiisa walaalkiisa kale uusan gudbin markaasi waxa uu xabadii shalay gaalkacay ka dhacayso intii jiblo ka kala leekay saakay xabadaa ka dhici maysay mid mustooleed nin sababtuna waxa weeye Puntland dhinaceedu istifaac ku jirta shalay waa la soo weeraray daraad waa la soo weeraray kana adiga magaalada joogo markhaantiya maantayna inaysan xabad sabab waxa waa walaalaya xabada iyaga joojiyay jircoodaan hadda xabad ka soo dhacay hadda soo dhacdana waa la jawaabaya guriga cali hadda degan yahay guryaha magaalada ka hadda waynu tagi karnaa waa la arki karaa cidii la rabaa la tusi karaa suuqa guryaha bangiga geeskiisa wax yar ka baqaarka bismillah yaa cali ciidii iyo dhagaxa iyo dhoolada u yaalaan difaaca ka dhigtay waana guryaha nabiga deegaankayagii guriga islaam bashiir baa ka sheeya iyo cali xilxin midma guhaadi
guryaha iyaga waxa la isku hayaa marka ashu geela iyada intoo cabaada cali xaafadiisa daarta hormuud wixii xagga ka jira cidina kuma hayso hadduu maamul dhisanayaan cidi ku haysan ciddaan cidina doonayn walaa lala rabaa shaygaalka ay markii la soo degay cali wixii la taraado abaa leeyahay wuu ka warrabaa waxaan rabaa marka dadka runta in loo sheego yaasin waqti waynu ku kooban yahay waxaan rabaa iikaadi waa kuu soo noqonaya cali diriye jawaabta ogaaska adiguna jawaabkaas weeya maya wax yar cali diri intuusan jawaabin nabadoon yaasiin baan rabaa nabadoon yaasiin wixii dhacay oo hore waa dhicin wixii kalena jarnaqsi iyo dadka wada fadhigay tegi doonaan soomaaliduna waxay tidhaahdaa hadal hal geed le laba geed iisan kugu dilin waxaan aniga hadda hadka uga faa'iidaysanayaa laba arrimood inaan codsigooda kuu soo gudbiyo inaad qaadi kartiyo in kalena aad ii sheegto soomaalida dhan baad maqlaysa ugaas soomaalida dhan baad maqlaysa xogta aniga waxba gaar ha ii farine sheegi ha maya waa labadiina adna waan ku fari asagana waan farahayaa ee aduu iga dhegeyso waxaan doonayaa laba arrimoodba hadday suurto geli karto inaad halkan ka ballan qaado kow adigu hadda waxaad ka hadlaysaa in mas-uula tahay oo jaanibka maamul goboleedka puntland baad ka hadlaysaa waxaan doonayaa inaad ku dhawaaqdo xabad joojin inaad ku dhawaaqdo bilaa shuruuda inaad xabadda idinku joojinaysaan hadda waxaad sheegtay in laidinsoo weerarayay oo idaan idinku weerar ahayn anigu goobtii joogo kalama jawaabi karo waxaan kaa doonayaa inaad ku dhawaaqdo jaanibkiina inaad ku dhawaaqdo xabad joojinayna diyaar u tihiin waktigaa laga bilaabo xabadkiinana ayna dhacayna waa rabaa waa kow labo odayaal muxuu ahaa soomaaliyeed oo beelaha soomaaliyeed ka kooban oo ay dhib ku hayso barnaamijkaas ka socda gaalkacayo si aadana ay wadnahooda uga dhex qaylinaysaan u nahay inaan soo baxnaanu rabnaayo meeshaas soo aadno oo si muxuu ahaa muslimnimo iyo walaalnimo iyo ehelnimo ah oo aan uga damqanayna waxa meesha ka socda inaanu wax ka galno wax ka nidhaahno dib dambana ayna idamka ilaahay waxba uga soo noqon ayadana imaanshaha annaga ogolaanshihiisa waan ogsoonahay oo maamul baa kaa dambeeya adigu oday dhaqan baa tahay laakiin ilaa iyo xag kalsooni baad qaadi kartaa warkaana waad la wareegi kartaa qaarar kale oon la hadalnayna way jiraan oo adiga keligaa kuguma aha barnaamijkaana halkan inaad ka xambaarta iyadana waan doonayaa inaanu iman karna inaad ogolaataan waya ugaas xabad joojinta labadoodaba waynu weydiinayna waxay la tahay mid walba inuu raggiisa la tashanayo la taaso midna go-aan gaari karinin laakin cali diriye aloora cali diriye waad maqlaysa yaasiin cabdisimed hadalkiisa horta bismillahi raxmaan raxiim horta yaasiin cabdisimed anigu filmaayo waxaan ahay sejiro waaye arag baan ahay sawaaniyo shan iyo labaatan jira wuxuu dhashay colaadii buu dhashay colaadii nabadihii hore wax kama ogeyn haddana anigu waxaan ahay oda soomaaliyeed oo nin dagaal ma ahay nin nabdeed baan ahay intaas ase u magacaabayo habta taysiid iyo dul iyo silaasaar allah unaxariista islaa-aada allah unaxariista dul ilaahay bay ku xabaalan yihiin lagamana sheegan yaasiin horta anigu intuu maramari un ma hayo gaalkacyadaas maxaynu cali oo markay isku haynaay wadada haddii dhulku dul ilaahay yahay yaasiin nabadoon kale aan dhamaysto gaalkacyada yaasiin ma laga baryahayo mana leh ummadda soomaaliyeedna kama leh yaasiin waa nin nabadoona meel buu degan yahay galmudugna meel bay deganta waa laba walaalaah oo dariska aniga hooyaday waa daaro haweentayda weyna waa daaro ayagaa i dhalay ayagaana ii dhaxa yaasiin marka wuxuu yihi abtiyaashay waa qolada reer fagaasiya weeye yaasiin waa caasi anigusa caasi maayo si yaasiin caasi yahana markaasi wa anigu qolo kale ugudbi mahayo yaasiin kale yahan wax leeyahay cali hadee inaynu iscayn cali o dooda layno kuma qaban kaadi hadda yaasiin waxaan leeyahay aan nabad ka wada talino dadka masaakiinta u wada yeerno odayaashiinu soo diyaar garooba
annagana odayaashayna soo diyaargaroobahaya wax alla wixii abaara aad u yeelatiyaasi miiskaasay ku saaraya haddaad dhul yeelatid haddaad jeel yeelatid diyaar baan kuu nahay xabaddana jooji dhankeenna xabadda haddii ka awal ka dhacaysa waa joojinaynaa nabadda aanu geesaha ku dhogno imow soo fadhiisto adigoo nabadoona nabadoon waxaa layihi nabadoon baa layihi sardoon lama oran qor qaada lama oran ayldaamin lama oran tol beelay lama oran nabadoon baa tahay soo diyaar garow nabadaan anaguna diyaar u nahay waya cali diri aad baa umahadsantaha waktiga ayaan la dagaalamaynaa waxaan rabaa ugaaska inaan weydiiyo yaasi ninka waa ku siinaya ugaaskaan rabaa inaan weydiiyo haye ugaas anigu horta wax fara badan oo kale markii dhahayo waxani waa wax masiibaha oo soomaaliya oo dhan haysata haddana qaybtaan muxuu ahaa mudug bay ugu sii daran tahay abid waaqoo hadda ilaa uusan haysanin oo aan laba qoroo kala deganayn oo halgisaha uga taagan yahay farsamadabada meesha waa ka jirta oo aad baan ugu soonahay waxaan ka rabaa halkii arrin oo aan lahaa yaasiin aan u gudbinayay waan labadoodaba u gudbinaya cali dirtana inaan u gudbiyaan rabay waad i wada maqlaysaan waxaan doonayaa hadda joojin hadda inaad ku dhawaaqdaan labadiinuuba aadna u halgastaan oo labadiinii beelood iyo barnaamijkii iyo maamulkiiba aad barnaamijkaas afkooda ku hadashaan waan doonayaa marka labaadna waxaan doonayaa odayaal baad tihiin nabadoonaad tihiin beelihii baa ka turjumaysaan beeluhuna maamulkii bay ka turjumayaan waxaan doonayaa iyadana ballanqaad conforma inaad bixisaan odayaasha in la soo dhaweynayo oo lagu soo dhaweynayo nabadda inay ka shaqeeyaan waxaana ka horeeya baaqa labadiinuba hadda halkan inaad ka ogolaataan oo aad baaq nabadeed jeedisaan hadda joojina aad ku dhawaaqdaan nabadoon yaasiin iyo nabadoon cali diiriyo waad dhegaysanaysaan soo maaha waya aynu weydiino su-aashaas yaasin iyo cali si kooban baad uga jawaabaysaan nabadoon ma ku dhawaaqaysaan dhinaciina puntland inaad xabad joojin qaadanaysaan isla markaasna aad soo dhaweynaysaan guurti kale oo dhexdhexaad kana arrimahan oo inay timaado oo arrimahan ay dhex gasho si kooban markaan jamal anagu awal xabadda iyo colka ma anaan wadin haddana saaka xabadi magaalada kama socoto xabadda joojinteeda iyo wadideedu iyo bilowgeedu cali diiriyay ku xiran tahay cali diiriya ukaadi adigu ma ballan qaadaysaa dhinacina ma ballan qaadaysaa annagu dhinaca iyaga dalka dawlad iyo nidaamna waa uu leeyahay dadkana waxaanu ugu baaqaynaa nabadda in la qaato xabadda la joojiyo la garamo qofkii waxlihi wixiisa uu qaato dhibaatada dadka laga daayay qaxa intaa qofkii dani ma jirto intii sanadkii hore markii dhibaatadu dhacday oo dawladaha caalamka iyo dawladda federaalka yimaadeenna waxa keliya aanu jeedinay waxay ahayd war ha naga teginina maanta wada joogtaan annaga iyo walaalahayo waxaanu isu hayna nala ark waayo xabajoojin waa ogoshiin ikaadiyaasi xabajoojin waa ogoshiin midda labaad su-aasha labaadna ka jawaab guurti kale oo dhex gasha ma soo dhaweynaysaa midda labaad walaal qofkii isagu raba inuu dhibaatada soomaaliya ka taagan wax ka qabta ugaaska hadda anigu hadda ma aqaan waa nin soomaaliya hadduu marka wanaag iyo maslaxad hadda raba inuu ka shaqeeyo waa soo dhaweynaynaa iyo ciddii kaloo diyaar soomaaliya oo dhan baan rabnaa waxa gaalkaca cali diri aan dhamaysta jamaal waktigaayna haya cali diri aduna labada su-aalo jawaabteeda iikaadi walaalo hadda waxba ay weydiiseen warkaaga wuxuugahaya iska daa waxaan raalli ka nahay soomaali oo dhan inay inta timaado oo reer walba oo soomaaliya oo maslaxad doonaya annagay walaalaayo waxaana dhex yaalla inay arkaan oo markhaanti ka noqdaan oo meel madala ama kiisku annaga nagu raaco ama iyaga ku raaco waya waa ka jawaabta cali dir waa soo dhaweysa waya cali diri alool adna labada su-aalood jamaal waa maqlahayaa annagu diyaar waxaan u nahay haddaan galmudug nahay odayaasheeda haddii laga keeno dee adduunyada meesha usisayso oo bal soomaali daahiyeed silidanoo dhan haddii la keeno annagu nabad baan diyaar u nahay gacantaan u taagaynaa baaska inkastoo aana aqoon raalli waxaan ku nahay intuu guriga ee yimaado hudheelada ee yimaado nabadda waan kusoo dhaweynaynaa weliba sidaalka uu ku imaana annagaa bixinayna inaan gardaran nahay wixii ummadda rasuulku na saarto ama hiiraani ka yimaadeen ama jubbaha ka yimaadeen meel kasta ay ka yimaadeen anagu nabad baan diyaar u nahay waxaan codsanaynaa
inta ka horaysa annaga waxaan nahay maamul baan leenahay maamulkeena waxaan ugu baaqaynaa oo ciidamadeena ugu baaqaynaa nabad inaan xabada dee laysku soo rid ilaa intaad dul yeelan kartaa inaad dul yeelataan xabada inaad joojistaan waxaan u sheegaynaa nabadoonadeena waxaan u sheegaynaa maamulkeena waxaan u sheegaynaa ilaa madaxweyne ilaa ciidamada nabad baan qaadanay ummad ilaahay baa noo imaanaysa waxaynu 100 nin baa hadda ilinkayga taagan war nabadda ma nala qaadatay nabadda war ma nala qaadatay waya cali diiri si qurux badan ooga jawaabtay aniga adigu aqoon baan isku leenahay anigu waxaygu waa daahir adiguna daahir noqo waya cali diiri si nadiif ayaad uga jawaabtay ugaas waa maqlaysaa labadii nabadoonba waa ku dhawaaqeen xabjoojintii waana ballan qaadeen labadaba hal arrin baa rabaa inaan kula dardaarmo jamaal wadaadku meesha maxkamad nagu saari maye dooda nuxurkeeda aynu kale usii gudubno wixii kufeemaha waa bixinay ugaas waa ka qanacday soo maaha wax yar hadda maxkamad iyo ugaas su-aalo kalaan rabaa inaan ugudbin ugaas su-aal kalaan rabaa inaan dhex dhigo marka su-aal kalaan rabaa inaan dhex dhigo waxa weeye ma jiraan wax wada hadallaa oo la isku dayey xiisadan hadda taagan iyo kuwii ka horreeyey ee dhibaatooyinka badan ummadda u geystay in maarata lagaga wada hadlo oo bulshada nabad maaragtay loogu sameeyo colaadan lagu joojiyo oo hadda ka hor iyo wixii abihii soo dhictay colaadaha nabad looga wada hadlay ma jireen oo raafraac laga dhigan karayo aan weydiiya cali diri aloore soomaalidu waxay tidhaahdaa hagtada iyo timaado qabo shalay yaasiin wuxuu ku hadlay anugu qori mahay hadda qowl baan wada qaadnay nabad baan wala qaadnay anigana inaan oday nabadoon haddaan ahay ciidamada iyo dadkayga iyo xukuumadayda ku dhawaaqo yaasiin shalay maanta soo laaban mayo yaasiinna ani maxmeliyo yaasiin waxaan leedahay cidda awoowa ii tahay waxaa leeyahay abti kuma dilay abti iisa ku dili anigu abtiyaashayka xididkay waa soo dhaweeyaa hadda aniga waxaan joogaa shalay ka hadli maayo maantaan ka hadlahaya yowntana waan ka hadlahaya waya yaasiin horta cali waa u mahad celinaya waxaa la yidhi nin baa reera boqor u ahaa boqorkii baa dhintay oo wiil u dalay baa xanada dhaxday wiilku marka waa la xanan jiray waxaa la oran jiray baashaa sheeladaa iyo waxbuu leeyahay marka xankii baa gaadhay maalintii dambuu meel fagaaraa dadkii inta isugu keenay inta maradiis ka rabay wuxuu yidhi dadal xishood ha la ogaado adeer cali anigu intaas da-da horta 50 saniya weliba dad baan jiraayo 20 jir maayo caliyo gaalkacyo taariikhdeedana waa ka warhaya eelnimadii iyo rixinku wuxuu yahayna waa aqaan eelkayga rixinka labada dhinacba in dhibaata aysan kala gaarin ay nabad ku wada noolaadaan baana doonaya laakiin waxaan marna aana qaadan karin anigu dadkaan odaga u ahay waa run hadday dhib ku jiraanna dhibtaan oday ugu ahay inaan ka difaaco hadday wanaag doonayaana wanaagga inaan garwadeen ugu noqdaan oday ugu ah inta lasoo weeraro oo la dilo oo guryahooda loogu yimaado bisaale iyo qarqoore iyo dagaari weli sidii gaalkacyo loo soo wada degay hal mishina oo daarood leeyahay ma gelin kaxda qalbislaa dad ku laysta inta baabuur wiilashaadu tageen magaalada gaalkacyana wadada hadda waxa jawaabta u baahan oo aan raba cali inaan weydiiyo maalin walba in wax laysu sheego waxaa ka fiican wixii hore haddaan la taaban qur-aanku qisaska wuxuu usoo qaataa wixii hore in lagu cibro qaato bishaan bisheedii ahan bay ahayd 100 qofna markay dhimatay oo aan magdhow laga bixin oo magaalada mootarka laga dhacay oo wixii loo kaysa cali wiilashiisu samaynayeen wadda aysan lahayn oo islaamka oo dhan ka dhexaysayna ay waxay isu hortaageen saakayna suuqa gaalkacyo loo samaynayo badeecada ha lagu kala rogto oo xoolaha lagu kala gato gaalkacyo danteeda aniga caliba waa naga dhexaysaayo maslaxadda waa naga wada dhexaysaa inuu yidhaahdo raadgoob haddaan la qatin la qaadan la dhisi mayo oo waxa la arkay u dhacaan maalin walba waxaasoo kale xidhkama doodi kadho waxaa la rabaa marka runta in loo dhaco ehelnimadu waa gaar anigu caasi maahi waarikay iyo ehelkay labada dhinacba nasabkayga waa ku artirsadaa waana ku faanaa iima kala roona inay heshiiyaan oo wanaag gaaraan oo maslaxad helaan
oo adduunkoodana liidaanaan aakhirana ay cadaab ka baxsadaan baan jecla sabab inaan ugu noqdo in midka wax dilaya iyo kala dilaya labadaba eelnaar noqdaana ma rabo caliyow carab iyo uur ishaafsanna ilaahay waa naclada ilaahay waa nacladay waxaad haddeer doodaadii hore ku lahayd yaana ka markhaantiya marka waxaa xushood hala ogaaday yaysan noqon maslaxadana waxaanu qabnaa xabaddu haddaysan cali dhinaciisa ka imaan waxaan doona qaadayaa dhinacaan inaysan ka imaan sababna waxa u ah wixii shalay dhacayay oo hub ahaa iyo dhib saaka xabada dhici mayso xabadaa ka dhici mayso haddaan cali dhinaciisa dhibtu ka imaanna dhinacaan dhib kama socoto waxaan kaloo cali ha iga dhexgeli cali ha iga dhexgeli cali ha iga dhexgeli haddaad iga dhexgashaa daana waa kaa dhexgeliyaasiluka raallahow haye dhamayso way waxaan rabaa marka warkaygaan anigu kaga tegaya caliyow innagaa isu dhan dhulku qaybnaada la kala goyn mayo kanaal suwaysna layna dhex marin mayo qolana qola inta ka adkaata dhamayn mayso laakiin dhibaatadu hadday saa noqoto cabdikariim baa 5 maalmood ka hor yiri gaalkacay lama maamul lahaan mayso waa in cidi maamushaa siibaanu la daalanay gaalkacyo ninkii reebaa yeelanaya cali haddii uusan sidaas raalli ku ahayn oo hadalka cabdikariim uusan cabdikariim madaxweyne ugu ahayn dan ha u soo dhawaado maslaxad ha qaato wixii uusan lahayn ha ka tago wuxuu leeyahayna ha iimaansado 40 sano 50 sana dagaal lagu jiraa wax laga gaariyo natiijana lama arko maalin walba cali marka dagaalka inuu isagu bilaabo markuu arkay inuu xaaladdu ku falxun tahay inuu yidhaahdo nabad baan ku dhawaaqaynaa war mayla gaaseen waxba tari mayso kuna loo dhaco cali soo diyaar garow xidhaa inoo garnada mayso geed ilaa laynu waabanaynaa hagaarata gobasha annagaa dhigayna waya yaasin waktigii baad dhuminaysaa waxaan rabaa su-aal kale inaan ugudubno caliyow waxaa la yidhi waxay oran jiraan hoogay hadallada isku taagtaaga waktigayna ka dhuminayaan caliyow jamaalow waxyar calina iga aamusi caliyow ramadoon caliyow raalli ahow waa waas maxamed weeye raalli ahow walaalayaalow ugaas cali soo koob su-aalo kale ugudbin horta jamaal waxaan kaa codsanayaa maahayo xumo sheelada ah annaga afkayaguma karo dad waaweyna xusoonayaana cali diiriya afkiisa sheela ka soo baxday caliyow minaad tira caasi baa tahay maxaa ula hadha ukaadi yaasin ukaadi nabado ka sawda horta adaguna waxa aynkaas haduubi waxaan codsanaynaa annaga hallislisaanaan taagana ugaas horta waa maskaya annagu waxaan codsanaynaa nabad yaasiin wixii uu gar ku leeyahana ha qaato isagoona haysamin wixii uu gar uusan kulahayna ha ka hadlo yaasiin anigu dhul baan leeyahay geedaan leeyahay midna ka jawaabi maayo annaga nabad baan diyaar u nahay maxaynu isku haynaa marka waya ugaas barnaamijka inagoo mar dhow soo gabagabaynayna waxaan rabaa inaan laba su-aalood ina dhex dhigo waayo caliow su-aal baan ina dhex dhigayaa saddexdiinaba cali dhegeyso hallow cali inkastoo caliow barnaamijkan uusan ku saabsanay uusan ahayn mid siyaasadeed isla markaasna siyaasiyiintii aysan ka qayb gelin oo aysan ku jirin haddana waxyaabo badan oo colaadan kicinaya oo had iyo jeer soo noqnoqda ayaa jira idinkuna waxaad tihiin odayaashii iyo nabadoonadii mug weyn baadna ku leedihiin talada dadka degan gobolka mudug idinkoo marka puntland iyo aan eegin iyo galmudugba ma idin muuqdaa xal waara oo looga gudbi karo colaada ka taagan gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo ma idin muuqdaa cali diri ku horey jawaabta aniga diyaar baan u ahay gobolka mudug in dagaal ka joogsado dad wada dhashtaan nahay dad aqalki isu dhegan yahaan dad diinta maxamediyaa ku dhashtaan nahay nabigeena waa maxamed ilaahay waa waaxid nabad baan diyaar u nahay anagu nabad baan diyaar asalka iyo faranka nabad baan diyaar ma isleedahay faragelin ka baxsan labada dhinac baa ku jirta gobolka faragelin cali sii raacso waxaan sii raacsanayaa anigu dee qofna inaan eedeeyo ma rabo markhaatista waxa u ah sharafka iyo haraadkii maraykanka oo askarteennii laayay hoggaan baa wada maraykanku meesha askarteeda kuma ogey
waxaa dambe maalin baa laga wada hadlayaa yaas walaalkay waxaan diyaar u ahay nabad baan diyaar u ahay ugaaska nabad baan u baaqayaa inuu ummadda soo dhexgalo mid kastoo diyaar baan u lahay laakiin yaasi anagu dhulaa ka baryahayaan male waya ugaas waad ujeedaa nabadoonada hadalkooda waxaad moodaa inay kala taagan yihiin oo aad u kala fog yihiin oo aragtiyo kala duwan ay qabaan nabadiina way sheegayaan weligoodna nabadda noocaasa way ku baaqi jireen haddana nabadda mid fusha ma aha maxaad isleedahay adigu arrimahan way soo celcelinayaan oo faragelin shisheeye inay ku jirto ma u malaysaa gacan saddexaad niyow anigu barnaamijkan hadda tayadan hadda aan ku magacaabanahay muddo 20 sano ahaan hadda hayaa 20 sano wax badan aan Soomaaliya ka bartay dadka Soomaaliya haysta wax kala ma aha waa laba arrimood weeye waa dulmi aan cadaalad helin weeye sidiisuba waana hoggaan xumo hadduu dhaqan yahay iyo hadduu siyaasad yahay labadaba Soomaalida dhibka haystay waa hoggaan xumo hoggaan xumada ilaa laga baxo oo hoggaan cadaalad ama dhaqan ha noqdo oo qofkiisa dulmiga uu galaya ka celin kara oo sheegi kara oo garan kara oo inkiri kara la helo Soomaalidu waa saan hadda ku sheegayay way maxraati fureen awow iyo abti bay isu noqdeen labadooduba abti marka taas anigu midaas aan uga bixi lahaa waxaanan dhihi lahaa awalan barnaamijka inaan iska koobno meesha quruxda dambeeya aan u geyno oo hadda joojinta aan ku dhawaaqnay taasaa macno leh haddii aad iga ogolaato waxaan dhihi lahaa labada nabadoonba arrin yar baan rabay inaan u kala gudbiyo haddaad ii fasaxdood ii ogolaato waya raacso soona koob si dhaqsaa waya yaasiino waxaan kaa codsanayaa adigoo raalli ah nabadoonka waa awowga waana kaa wen yahay waad sheegtay xanaftana sideeda waa la ilaaliyaa hadda halkaan kuma anaa garnaqsanayna waxaan rabnay inaan barnaamij nabad ah oo wanaaga inaan ku xallino dadkana ugu baaqno garnaqsiguna wuu imanayaa oo waa qasab waanan aaminsanahay Soomaaliya dhibka haya garnaqsi inuu u baahan yahay waan aaminsanahay qolo kastana dhib bay sheeganaysaa raadiyahana laguma koobi karo waxaan kaa codsanayaa awowga erayadaadi wuu ka sheegtay muxuu ahaa adiguna adaarti u tahay wuuna kaa wen yahay inaad raalli ahow tiraahdo waan codsanayaa ugaas cali wuxuu ku hadlayay hadda inaad ka garnaqday ahayd anigu nin weyn oo reer nabadoon oo Soomaali u dhexeeyaan ahayd daada cali hadduu igu xurmayn waayey aniga kaliya waxay oranayna horta bal isagaa marka hore weynaysa waa yahay wixii xaal ilkaadi ugaas wixii xaalmarina iyo wixii barnaamijkan aan gabagabayna cali ugaas wixii xaalmarina iyo wixii saaligelin waxay la tahay gogosha la soo iman doonaa waxaan rabnaa inaynu hadda xalka u gudubnaa rabnaa barnaamij waqtigaa dhamaaday cali baan la hadlayaa ii jug marka cali baan la hadlayaa ii jaadi cali diirka may maqlaysaa si wanaagsan adigoo aad waxaan codsanayaa wiilka awow aad u tahay oo abtigana ku ah abtiga way hadallada iyo barnaamijka intaba way ka cabanayaan halkaan oo kale marka la isugu yimaadana oo sidaas oo kale aad u hadlaysaan dhibkaadina uu taagan yahayna dadka markaa hadlaaya erayadoodu waxna way dejisaa waxna way kicisaa yaasiin waa igu soo celiyey adiga waxaan kaa codsanayaa inaad adigu yaasiin raalli ahow tiraahdo abtina waa lagu yahay odayna waa tay asaga adaa ka weynaa inuu ku raalligareeyo kadibna adiga aan kusoo wareegaan yaan rabay asagii waa iga horyimid adigu inaad qaadatood raalli ahow asaga tirahdaan kaa codsanaya waxaan iga tirsanay ugaas aad baan umahadsantahay ilaahay aniga yaasiin waxayma oran oo wuxuu raalli ahow igu yidhaahdo oran labadeenaba waxaan u hadlaynay laba maamul iyo odayaal baan ku wada hadlaynay yaasiin waxaan ku raalli geliyana uma ana dhigin asla ima dhigin haddana yaasiin meel baa madashu waa noo meel waa noo jeed islaamka jooga adiga ugaaskaa aad fadhisi markaabuu wax alla yaasiin wuxuu u yeeshto yaan diyaar u ahay wixii anigu aan yeeshaan diyaar baan tahay haddase yaasiin aniga waxba ima dhigin waxaan ku raalli geliya ima dhibin asaga raalli ah waxaan ku idhaahday ima dhibin waa wada hadallay nabad baana ku baaqnay waxaana wakiila islaamka ilaahay oo dhan ugaaska adiga ah yaa wakiil laga ah nabadda haddii anagu xabadda aan jabina annagaa gardaran yaasiin hadduu jabiyana asagaa gardaran
yaasi waxba iima dhibino waxbuu ku hadlaya qol wakiil u ahaa aniguna qolan wakiil nabadaasaan ku wada baaqaynaa qofkii nabadda ajabiye ayaa ka daran waya barnaamijka aynu soo gabagabayno waxaan rabaa xalkii inaan u gudubno waxaad moodaa xaaladdu in ay ka guda ballaaran tahay hadda siyaabihii hore maxay idinla tahay maanta in la sameeyo si aan xaalku faraha uu uga soo bixin isla markaasna looga baaqsado colaad lagu riiqmo oo dad badan ay naftooda ku waayaan waa gabagabadii xalkii weye yaasin cabdisamed ka hormar ugaas waynu usoo gabagabayn doonaa insha allahu xalku horta waxay xalku ku jiraa markii hore aan hadalka ku bilaabo cali wuxuu taagan yahay arladu arle ilaahay cid wax kuma haysato maalinimadu gudaye shalga wadan iyo wixii koonkaas baahan isagaa iskale laakiin bini aadamka wuxuu u kala asteeyey waxaan cali kusoo dhaweynaynaa wixii uu leeyahay oo dad wakiil ugu yahay oo oday ugu yahay oo dul ugu yahay inuu iyagoo dhibla oo aan dagaal lahayn oo aan xabad lahayn oo shida lahayn miiska intuu fariisto wuxuu leeyahayna inay qaataan waxaysan lahayna ay ka tagaan annaguna iyadaanu diyaar u nahay daris wanaagsan oo istixgeliya oo nabad leh oo ehelnimo leh oo soomaali ah oo soomaaliya dhibaatadeedu gaalkacyay ka bilaabato dadka afarta koona tege soomaaliya nabadeedu gaalkacay inay ka bilaabato yaan soo dhaweynaynaa arrinta kale oo ahda siyaasada iyo gacmo kalea ku jiraan jawaabteeda hadaayo anigu ma bixine waa ku jiraan dawladda federaalkaana kowka waana wax cadoo muuqda arrimahani marka arrinta gaalkacyo inay noqoto doodiya dareeso nin walbaa wuxuu raba inta gashada ku dhegaysto oo midi raadiya ku dhegaysto oo midi taleefon ku jaasgaraysto oo midi t v ku fiirsado caligo waxaa ka fiican innagaa isu dhan walaalow oo ilmaa riyaal helo xigtood dan inkagu soo dhawaano wixii dana aynu isugu nimaano caqliga aynu ku dirirayno ku heshiin karaa waxbaynu ku kala waxaynu kala leenahay aynu kala naqaan ninkii danac ku jira oo dana caddaa ninkii wax diida kale ku jira oo wax diidada daa dan aynu usoo dhacno soomaalina loo daneeyo inana aynu dalbano aad baa umahadsanta cali diiri alore bismillahi raxmaani raxiim horta yaasiin wiilkayga waxaan leeyahay hadalka uu yiri waan soo dhaweynayaa wixii aan leedahayna ku gabi maayo horta mid lagu murmi maayo ilaahay koonkiisa asagaa iskale aniga caldiiriya oo koonka ilaahay meli koonka ilaahay baa iskale laakiin macaamilada iyo dersimada iyo walaalnimada sida yaasiin yidhi yaan u soo dhaweynaynaa diyaar baan u nahay dersinada diyaar u nahay walaalnimadaan diyaar u nahay wadahadalkaan diyaar u nahay yaasiin asagoo aysan wadahadalku raadin saacaddii adigu ama anaa ku dhawaaqaya ama saacaddii gobasha adigu kugu dhawaaq naba diyaar baan nahay ugaaskuna goobjoog buu noo ahaanaya inta ugaasa islaamku goobjoog buu noo ahaanaya islaamada anigu federal iyo dawlad iyo midna ka hadli maayo aniga adigaa dariska aniga adigu aan wadahadal aan gacadda qabsana aan heshiino way aad baa umahadsanta ugaas maxaa kusoo gabgabaynaysa adigu bismillah horta aad bay umahadsan yihiin labada nabadoon oo hadashayba wayna wanaajiyeen waxaan marka saan oo kale loo wada hadhadlana waan kusii celinayaa weliba waxa wanaagsan barnaamijka noocan oo kale markuu yahay qalbi wanaajin baa la muujiyaayo qalbiga waa la wanaajiyaa cafis iyo masaamax baa lagu kala tagaa inay is yidhaahdaan waan ku talinayaa anigu haddii aan kusoo dhawaado waxaan dhihi lahaa barnaamijka hadda siday u sheegeen inta badan dadka hadda taagan oo gaalkacyo ka jira anu inaan hoos usii gala ma rabo laakiin waxaan isleeyahay waxaa asal u ah mas-uuliyad xumo danay ka jirtada sidaan horey u sheegay waxaan kusoo gabagabaynayaa marka koowaad waxaan codsanayaa baaqii in lasii daayo oo idinkuna aada kobcisaan qoladiinan derjina aada kobcisaan meelo badan aada geysaan ayaguna ay kobciyaan oo maamulkooda min bidaaya ilaa nihaaya bilow ilaa dhammaad labada nabadoonba maamulkooda ay ka dhameeyaan ayna si caama ugu dhawaaqaan siyaasiyiinta iyo dhaqanku labaduba meediyaha midka hoose iyo midka saraba la geliyo
oo laga maqlo maqalkaa keliyana ma ahe la xakameeyo hawshu arrimaha gudaha ayay ka falantaa qaranku hadduuna gudaha ka dhisnay banaanka kama dhismi karo nabaddu haddayna gudaha ka dhismina idaacadaha iyo meediyaha kama dhismi karto waxaan codsanayaa banaankana inaad ka dhistaan gudahana inaad ka dhistaan muddana la qabto oo muddo muxuu ahaa kulanka iyo isu imaanshahana muddo asbuuca laga dhigo rag fara badan baan halkan ka abaabulnay idinka idinkuma xidhno waan ognahay laakiin way idinku xiran tahay oo haddaba waxaad u hadlaysaan guruubaad u hadlaysaan waad gaarsiin kartaan maamulka puntland baad ka dhamayn kartaan ood gaarsiin kartaan nabad ma diidahayo adaa ka turjumayo nabadoonkoodiya asagaa galmudug buu ka dhamayn karaa asagaa ka turjumayo nabadoonkoodiya khayrka markii loo baahan yahay arrintu way fududahay sharka markii loo baahan yahayna waa sida oo kale khayr baynu hadda ku dhawaaqnay codsanaynaa nabadan in la kobciyo oo kor iyo hoosba loo qaado